waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan nagu taageer subscribe and like. Dhiirigelin ayay noo tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأولئكن زكي بأكو مقعدير تيجا زكو halka aad naga daawanaysan waa barteena aan ku leenahay YouTube-ka ee TJ Zaku Official. Maantana waxaan idin soo gudbin doonaa sidii aan horeba idinku sheegay qaybtii koowaad ee sheekadii la magac baxday maxaa inaga qarsoon. Ku soo dhawow channelkayga TJ Zaku Official. walaal waxaad qayb weyn ka qaadanaysaa dhiirigelinta naftayda, taangis dhammaantiin asxaabtayda iyo familkayga. haddii aan gudaha u galno qaybta koowaad ee sheekada maxaa inaga qarsoon. sheekadu waa mid xasaasi ah, sidan soo socota ayay u dhici doontaa insha Allah. kooxo isugu jira wariyaal iyo sawir qaadayaal oo ay weheliyaan dhowr jilayaal iyo fanaaniin ah ayaa damcay inay soo duubaan barnaamij wacyigelin oo ka hadlaya arrimaha deegaanka. sidaa darteed waxa ay u xuseen inay muuqaalka barnaamijka ku soo duubaan meel ka baxsan magaalka oo cabaar gaariga u soconayo si uu barnaamijkooda u noqdo mid heer sare ah. kadibna waxay u qalab qaateen halkii loo asteeyo qabashada barnaamijka, taasi oo xiiso gooni u leh iyaga iyo kuwa daawan doona barnaamijkooda. goobtu waa meel cidlo ah oo haddana dhir badan. waxaa ku dhow buur weyn oo qaab xagal ah u samaysan. haddaba sida kooxdii u socotay ayaa waxay u diyaarsadeen qalabkoodii meel dhowr tilaabo u jirta buurta hoosteeda. inta aanay bilaabin duubista barnaamijkooda oo ay ku hawlan yihiin tijaabada qalabka iyo qaab bandhiga jilayaasha ayaa waxaa marquda si dhow u dulmaray 3 diyaaradaha helikobtarka ah oo isxiga oo qaadanaya laaca koowaad ee hawada. wariyaashii, sawir qaadayaashii iyo jilayaashii kale ee wada socdayba waxay garwaaqsadeen in diyaaraduhu ka soo kaceen dhanka shishe ee buurta ay ayagu sako ka taagan yihiin. yacni waxay isku raaceen in helikobtarada ka soo kaceen dhanka kale ee buurta ee ay ku soo yihiin. ayagoo arrintaas isdareensiinaya oo haya doodeeda ayaa waxaa meel low kaga soo baxay nin leh muuqaal rirmiyi oo xiran macawis iyo shaar muddo uu sitay, laakiin wuxuu isticmaalay luuqad dowladeed sida lama ogola inaad halkan ku shaqaysataan, fasaxna uma haysataan inaad muuqaal qaadataan ama aad ka samaysaan ee isaga taga 10 daqiiqo gudahood halkan. wariyaashii goobta joogay wuxuu codka ninka reer miyiga ah la noqday sida taliye saldhig ama agaasimo wasaaradeed oo buuraha uga daba yimid, waayo luuqadiisa ayaa ahayd mid ay ku barteen badi wariyaasha dadka aan soo xusnay. ninkii wuxuu ku laabtay isla dariiqii uu ka yimid, xitaa ayaga ma uusan siinin waqti uu ku dhagaysto jawaabtooda. kooxdiina afkii baa juuqda gabay oo cabaar ayuu mid walba oo ayaga ka mid ah indhaha miriq ka siiyey ayadoo dhanka sare loo eegayo buurta. laakiin xoogaa kadib hal wariye oo ka mid ah kooxdii ayaa soo jeediyey inay tan tahay fursad uu ka faa'iideysto wariyaha xirfadda leh. sidaa darteed anakuna ay maanta na soo martay fursaddaas oo kale ayna tahay inaan ka faa'iideysano loona heli doonin fursaddan oo kale mar dambe. wuxuuna muhiim ugu sheegay kooxdiisa inay fuulaan buurta soona hubiyaan waxa ka shisheeya buurtaas dhabarkeeda ka qarsoon. laakiin badi kooxdii baa ka diiday arrinkaas oo bilaabay inay gurtaan qalabkooda ayagoo ka cabsanaya waxyaabo ka soo gaara buurtaas. laakiin kama aysan fikirin wax ka dambeeya buurtaas ayna muhiim tahay in la ogaado halka ay ka soo kaceen helikobtarada. wariyihii wuxuu dhan walba ka tusay kooxdiisa inay magac iyo lacagba ka samayn karaan waxa ka shisheeya buurta. wuxuu tusaalooyin u siiyey sida tan: war maxaad ka ogtihiin waxa ka dambeeya buurta? ka warama hadday garoomo diyaaradeed ku yaalaan? ka warama hadday noqoto saldhig ay joogaan ciidamo ajnabi ah oo ka howlgala qarsoon kana fushanaya dalka baaxadda leh ee ay dadkiisu kafin karin? aan hubsanno, soona sawirno fadlan. intaas iyo hadallo dheeri ah uu is raacsaday, laakiin waxuu ka raacaa ma uusan helin, waayo wariyaashii baqdin xoogan ayaa soo wajahday. nin walbana wuxuu is yidhi naftaada la meel la tag, haddaad saan ku badbaado nasiib ayaad leedahay. waxaase natiijadu tagtay in ninba naftiisa u hoggaansamo. kooxdii badi magaalada ayay soo wajahday. wariyihii dhanka buurta ayuu u tallaabsaday isagoo iska dhaadhicinayo waxaad noqon kartaa geesiga waddankiisa wax u soo ogaaday.
ayna tahay fursad aaminsanna inay naftu hal mar baxdo. Ha yeeshee waxaan markiiba go-aankiisa bedelay kaamirmaan kooxda la socday oo u soo haray dhanka wariyaha. waxaase halkaas ku qaybsantay hal qiso oo kala raacday laba wado oo sida kooxda dib ula laabanaysa xog dareen leh iyo laba nin oo cagta saaray wado aysan qiyaasi karin dhammaadkeeda. haddaba dhegeystow, keebaad u aragtaa inaan kow raaciyo qalinkayga? waayo qisada waa wejiyo badan tahay, haddana xogo la yaab la sidata. ma aysan kala dambeyn ee way is hareer socotay. qalinka ma waxaan raaciyaa labada aaday buurta, mise waxaan hubsanaa inay kooxdii badneed nabad tagtay magaaladii ayagoo ay ku laabteen. qaybtii koowaad ee sheekadii la magacbaxday ma aaminsan tahay dhegeystow inay jiri karaan meelo miyi ah oo ciidamo ajnabi ah ka warqab la-aan uga shaqaystaan dalkeena? fikirkaaga hoos noogu reeb walaal. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. fadlan nagu taageer sabskraiban like, dhiirigelin ayay noo tahay.